marka gobonnimo gaajo leh ya dhaanta gumaysi dhereg leh dadka reer koonfur galbeed meel kasta iyo roogam walaha ta magaalada Baydhabo ku dhii oo dawladnimadu ha ka duuli ku xunyiinana tusaas dadka reer koonfur galbeed iyo degmooyinka dhonga deertay in lagu difaaco waajib nabada saaran waligee ka dhawaayane se oo wanaagsan walaalnimo leh ha ka dhawaayane walaalnyogaanu reer weejid oo gurmudkii inka horeeyay oo ciidanka booliska gaarka koonfur galbeed nagadan taariikhda soo xusu doonto walahan ku tabtayna gobol eedan dheer oo bakool la raaw meeliisan kooytagna baayo maadaama isan hanhibaytag naftiin iyo maalkin in la ka difaaca dadka reer koonfur galbeed ciidankiin geesiyaalka isan garab surintaano kuma nagataan isan go'aansateen eedasin kuma nagaan walina tusaasay in wili damiirka reer koonfur galbeed noolin walina tusaasay in wili dadka reer koonfur galbeed meel kasta iyo roogam walaha ta magaalada Baydhabo ku dhii oo dawladnimadu ha ka duuli ku xunyiinana tusaas dad badan oo hanil hariireeya jar oo reer koonfur galbeed ayoon ha dhawaayaan lan kasta waqtigan adag oo ciidan sheeha garab surum deegaanadiis xureyntii geeb ku qaadada taariikhda xusu doon abaal gaar ah yalay taariikhda xusu doonta dalka iyo dadka yaan danay deegaanadan koonfur galbeed hore lahan iska day in la ka duulu lanki ha ka duuli uslay dhamaaday reer xamara wali raayana haagan iyo dhulka haagan kale dhamaaday dhulka hireelay dhulkan reer koonfur galbeed alle Soomaali fara badan oo damac dhulkan ka jara ni ilaahay idin sheeg horeyna walahan iska day hadana haan iska dayina mansuur kala doon geeb kumada walaalo reer koonfur galbeed gaar ahaan reer weejid oo geeb ha ku nagadeen difaaca dawladnimada koonfur galbeed iyo naytay wadansho walilana walaalayaal ha dhawaada dalka malsiin kulle weejidiisu ku kooyteen degmooyinka kala koonfur galbeed Soomaaliland marka aska laaw ko leeyay reer Baydhabo reer weejid reer Hudur reer Baraaw antiyo ballaaw ko koolay hadii koonfur galbeed meel kumada la dhawaato deerta dadka reer koonfur galbeed iyo degmooyinka dhonga deertay in lagu difaaco waajib nabada saaran hadhawaada dalkiin ha ka dhawaada difaaciye ha ka dhawaada dawladnimadii koonfur galbeed oo dad walba goratay in dunyaan iska deeyeen dadkii hortiin diidi ha ka dhawaada iyadana ma santiin sada dabcan la sheegayo lama kelmo oo baaqay bas fadhiyaan inta ku jeedi dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya muddaha tulkuroga 20 dhowr sano ka hor wali diideena gumaysi dadban in la injeeysido dalsho i deegaanadiyo dad in dhalana banaanka ku kooyan in iyo dulaysadaan tangeede magalkii diidi wala ku nool inta dhimatay ilaahay nahris iyagoo la ka jara qarnigii 21 sanadkana la mukun 20 ilaa in marlama jiil cusub iska day in koonfur galbeed dad iyo xoog goobsadaan dadka ha turooga madaxdiyo iyo nayta ciidamadu diideen tangeeda uninu diini dadka reer koonfur galbeed meel walba roogan arakada saliimka inay ogaadaan waana diidaan afadaan ciidamada koonfur galbeed dabcan qeybta ta halganka ka jarta iibo kalaan wali in ka baaqay warantii isinka noolada fadeen dherer gumaysi leh in isinka noolatan wali siin faylaha gaaje sharaf leh isinka noolatan marka gobonnimo gaaje leh ya dhaanta gumaysi dhereg leh shilamaadko ay balalkoola siintoori walba siin taraayo koonfur galbeed unu isku leelan kala malle una dhisani unu lahaadan ilaa maalinta qiyaamaha ku dheero lan walba meelu isu rooga ciidanka koonfur galbeed haan furanta ka jarma haan kale magon in iyo kooyano ciidamadan ha xoojiya shacbiga reer koonfur galbeed gaar ahaan reer Baydhabo wali lana tumo dhowr sano la dhaafiyo dawladnimadaana jartay nibada ka jiifadaaseen Baydhabo jidid iyo nayta horumar ku dareeri wala iyo walaal ka sheenay qabiil ma hayno dawladnimaha dawladnimo una dhawna wada anfacaas qabiil wal ku dhaladay walwada ayaa wal iska gorode dawladnimadii taane in un hanagso noo fadaan sharaftii bil ku hor dadka reer koonfur galbeed qeyb kumada naanin adeegsaday la burburi inuu ku daba seeno hanagno fadaan
islaamiyadii dhisnaayay qabyada ay horsiinka dareera horumarkii walbarashada caafimaadka dareer horsiinka dareera siin waliilisiin ku faday sidii hordhaanba la shaqeeyay jirtaan ciidamada koonfur galbeed oo ammaankiin ilaaliyay inaysan marlamadan suruntaan ciidamada siin roogan bridka ka jaraan adawga la dagaalamahaayaan malaantu wali ku fadaan dahabsheeniya furto kan bakhaarka leh hoob olbadhiyo amarlada la gobsada bakhaarna mid manka ganacsadaasoo ganacsigan hormara inii ada dhaqaalaha wal ku biido fadaan dadka diyaasbarada ee reer koonfur galbeed Soomaaliya dalka dibadda jara baydhabo hanuunga dalxiisan ka baajarteen meelisin kooy jarteen beerogi dalxiiskii gaali wantis waldiidi sarbalaar tuwa kooyti beesaysin jeebka ka haysataan habii dalkiina ka difaaca